xanuun kastoo aad qabto oo nafta gala shakiya murana kan ah baahi kastoo diineed oo aad qabto qur-aan baa kaa daweynaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin wuxuu u baahan yahay qur-aanku inaynu fahmno isagaa ina sugaya waxaynu u baahanay inaynu ilaahay in badan tala saarano oo barino qur-aanka waxaad akhrisaa ambiyo badan oo ilaahay baryaysa oo ilaahay baryadii ka aqbalay oo wax laga aqbalay uu wax bini aadamka agtiisa fog uu ku yihi aan la aqbali karin nebi ilmo dhali waayey oo gaboobay oo islaantiisii gabowday oo ilaahay isu cusboonaysiiyo ilmo la siiyey mid badu liqday oo haddana kalluun sii liqay oo calool kalluun isagoo ku jira ilaahay baryay oo ilaahay ka soo saaray qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa markaa qofka ilaahay dhab ugu xidhanay dhab u barya in ilaahay badbaadinayo xataa nabiyullaahi maxamed baa ilaahay leeyay waxaad ku badbaaday walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliil haddaanan anagu ku sugin baa ilaahay yidhi makriga gaaladu wadaan waaba xaggoodaad u dhowaan kari lahayd baa layidhi waad u eelan kari lahayd waraasikuuna fi lcilmi markii ilaahay ka waramay waxaa lagu tilmaamay kuwa cilmigu biyo dhiga ee raasikha ahi iyaguna inay yidhahdaan rabbanaa laa tusi quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab ilaahayow qalbiga yaga sug nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam intuu sheegay quluubta bini aadamku inay ilaahay gacantiisa ku jiraan ayuu kadib ilaahay baryey isagoo le allahuma musarif alquluubi sarif quluubana calaa taacatik ilaaha qalbiga bini aadamka gagadiyow qalbigayga taacadaada xaggeeda u gadi waxaa laynooga baahan yahay cadamu tacarudu ila alfitna waxaynu u baahannahay ilaahay dikrigiisa inaynu badino alaa bidikri illaahi tatma-inu alquluub intii aan laga waramin aakhiro iyo ajarka la helayo waxa la soo horreysiiyey adduunka manfacu inoo leeyay oo waxaa la yidhi ilaahay dikrigiisa jannadaa lagu gala lama soo horreysiin aayaadka ka dambeeya ilaahay kusii tilmaamaya laakiin waxaa laguu soo horreysiiyey tan inuu wax kaaga tarayo walidaalika cibaadaadkao dhan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa intaan aakhiro la tegin adduunka inay wax ka taraan ina asalaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar ilaahay wuxuu tilmaamaya khuliqa alinsaanu haluuca idaa masahu sharu jazuuca waidaa masahu alkhayru manuuca ila almusaliin baa ilaahay tilmaamaya dabciga bini aadamku inuu noocaa yahay mid markuu wax helana hunguri badan oo aan waxba bixin markuu wax waayana calaacal badan oo qayliya ila almusaliin baa ilaahay yidhi kuwaasi laakiin ma laha sifaadkaas idan cibaadaadka layna faray adduunkan ba wax ka taraan intaynan aakhiro tegin sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum wa ashadda tahbiita hadday samayn lahaayeen waxa lagu waaninaya baa ilaahay leeyahy taasaa u khayr badnaan lahayd xagga sugitaankana u sugnaan badnaan lahayd meelaha ugu adag nolosha waa goobaha dagaalka ilahay wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu war dadka muminiinta haddaa goob dagaal timaadaan oo ciidan ishaleeshaan war sugma haye wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun baa ilaahay ilaahay xusa xuska ilaahay baa idin sugaye ilaahay xusa buu alla leeyahy subxaana wa tacaala idan daacada badani dikriga badani wayna sugayaa